xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu hanjabay al-shabaab. Turkiga oo shaaciyay arrin aan horey looga warhaynin oo ku saabsan ciidamada kumaandooska Soomaaliya. Hogaamiye ka tirsan Taliban oo fariin lama filaan ah u diray Mareykanka. Ganacsatada qaadka Kenya oo dhibaato hor leh ay soo wajahday. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xerada militariga sports ee dalka Turkiga ku booqday ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaandooska Soomaaliya oo tababar kumaandoos ugu socda xeradaasi. askarta oo ay carbinayeen macallimiin ka tirsan Turkiga ayaa marka ay tababarkooda ay dhameystaan waxay dib ugu soo noqon doonaan Soomaaliya iyagoo gacan ka geysan doona buuxida baahida dawladda Soomaaliya u qabto militari awood leh. xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka boqolaalka u jeediyay khudbad muhiim ah oo ku saabsan tababarkooda ahmiyadda ay leedahay iyo inay ka faa'iideystaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu hanjabay al-shabaab inay ka cirib tiri doonaan dalka iyo sidoo kale kooxaha dhibaatooyinka ku haya. waxa uu sheegay ciidamada tababarka ugu socda xerada sports ee dalka Turkiga marka ay dalka ku soo laabtaan inuu horyaalo waajibaad muhiim ah oo ay qaban doonaan. wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena gaarka ah. bartamihii bishii January ee sanadii 2022 wasaaradda arrimaha difaaca Turkiga ayaa markii ugu horeysay shaaciday arrin aanan horey wax badan looga ogeyn oo ku saabsan kaalinta dawladda Qatar ay ku leedahay tababarka ciidamada kumaandooska Soomaaliya. Twitter-ka wasaaradda ayaa la soo dhigay sawirro qoraal ah oo muujinaya saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga Qatar oo tababar u fidinaya 250 askari oo kumaandooska Soomaaliya xero ku taala dalka Turkiga. sawirrada ayaa lagu dul qoray jumlad luqadda Turkiga oo aanu ka soo turjunay xarunta tababarka dhanka la dagaalanka argagixisada iyo carbiska sports. isbuucii saddexaad tababarka loogu sameeyay 350 askari oo Soomaali ah oo Turkiga jooga waxaana qayb muhiim ah ka qaadanaya tababarkooda xubno ka tirsan militariga dawladda Qatar. wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii gaarka ahaa. hogaamiye sare oo ka tirsan Taliban kuna sugan Afghanistan ayaa arrimo dhowr oo ku sheegay fariin oo ku soo diray oo qayb ka mid ah oo ugu talagalay munaasabadda ciida ee fooda inagu soo haysa. fariinta Mullah Hibatullah ayaa u muuqatay mid ka dabacsan yara sidii hore oo uu sheegay in Afghanistan aysan khatar amni ku ahayn wadamada dariska la ah iyo dalalka kale ee gobolka. waxaan xaqiijinayaa in cidna aysan ku qasbi doonin ciideena isagoo wadamada kalena ugu baaqay inay sidaas oo kale ay sameeyaan. kulan uu la yeeshay hogaamiyaasha diinta ayuu ka dalbaday in wadamada adduunka aysan soo faragelin Afghanistan iyaguna ay nabadgelin doonaan. wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii gaarka ah. sidaan horey bay idigu sheegnay beeralayda qaadka dalka Kenya khasaare lixaad leh ayaa ka soo gaaray xayiraadii la saaray qaadka ay u soo dhoofi jireen waddankeena Soomaaliya. jaadka ay geen jireen Soomaaliya ayay sheegeen in fursad shaqo uu ahaa dad badan kuwaasi oo hadda aanan haynin wax shaqo isla markaana ay soo food saartay shaqo la'aan baahsan. gudoomiyaha ururka ay ku midaysan yihiin beeralayda jaadka ayaa BBC-da u sheegay in maalin walba ay khasaaraan lacag dhan $150,000 oo doolarka Mareykanka ah markii dawladda Soomaaliya ay qaaday xayiraadii saarneed badeecadaha la geeyo gudaha waddanka Soomaaliya waxa ay ka reebtay jaadkii maalin walba. waxaana Soomaaliya aan geey jirnay 50,000 oo tan oo jaad ah taasi oo ka dhigan $150,000 oo doolarka Mareykanka ah. qalanjadii hablaha